السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيابوا يابي محي سوماليا كدونتي كوبا ودنكي قيبتك أها جبكي سو غاري ciidamadii Soomaaliya ee ay huwantii isugu tageen sanadkii 1977 markii uu dhacay dagaalkii u dhaxeeyay wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya sanadkii 1977 ilaa iyo horaantii 1978 waxa dib ugu soo biiray dagaalkii ciidamada Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxeeyay xoogagii Warsaw Pact oo ay ugu horeeyeen midowgii Sofiyeeti Kuuba iyo Yamanta Koonfureed gaar ahaan Kuuba oo saraakiishii xilligaas ee Soomaalida ahayd ay ku eedeeyaan in ay ciidamada Soomaaliya soo jabiyeen wixii xilligaas ka dambeeyay waxa xumaaday xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay labada dal Soomaaliya iyo Kuuba balse haddaba waxa arrin la yaab leh noqotay in bartamihii bishan aynu ku jirno ee Sebtembar uu gaadhay wadanka Kuuba wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Umar Huruuse isaga oo sheegay inuu kaga qayb galay shirka G77 oo ah urur ay ku midaysan yihiin 134 wadan oo dunida ah bartiisa Facebook ayuu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ku qoray sida tan shirkan ayaa ku saabsanaa kaalinta sayniska hal abuurka iyo tiknoolajiyadu ku leeyihiin horumarka iyo kobaca dhaqaalaha adduunka maxaa haddaba iska bedelay xiriirka labada dal Kuuba iyo Soomaaliya bishii Abriil ee sanadkan aynu ku jirno wasiir Huruuse ayaa qaabilay safiir ay Kuuba u soo dirsatay Soomaaliya iyaga oo sheegay in ay si anbaqaadi doonaan xiriirka labada dal wasiirka oo xilligaas hadlay ayaa sheegay in ka hor dagaalkii 77 ay labadan dal xiriir lahaayeen safiirka wadanka Kuuba oo lagu magacaabo Juan Manuel Rodriguez Vasquez oo ah safiirka u jooga dalka Kenya kaas oo sidoo kalena qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee Kuuba warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in safiirka Kuuba uu waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Kuuba iyo xuska askarteedii ku dhimatay 77 bishii March ee sanadkii 2019 madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay ee Kuuba Salvador Valdez Mesa ayaa waxa uu ka qayb galay xuska ciidamadii Kuuba lagaga dilay dagaalkii Soomaali galbeed ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya sida uu qoray wargeyska Prensa Latin Valdez ayaa caasimadda wadanka Kuuba ee Havana waxa uu u baxdhigay goob uu ku yaalo dhagax ay ku dhagan yihiin sawirada askartii Kuuba kaga dhimatay dagaalkii 1977 ee dhexmaray Ethiopia iyo Soomaaliya guushii ay Kuubaanku ka soo hooyeen dagaalkii 15 March sanadkii 1977 ayaa soo afjaray dagaalkii cuslaa ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya gaar ahaan ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada Itoobiya kadib markii Soomaaliya ay xoreysatay dhulka Soomaali galbeed ee Itoobiya haysato dawladda Soomaaliya ee uu hogaaminayay madaxweynihii xilligaas Maxamed Siyaad Barre ayaa xilligaas sheegtay in dhulka Soomaali galbeed uu yahay dhul Soomaaliyeed isla markaana ay Itoobiya xoog ku haysato madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay ee Kuuba Salvador Valdez Mesa ayaa xuska kadib waxa uu kulan la qaatay wakiilo ka socday bulshada Kuubaanka ee ku nool dalka Itoobiya dagaalkii 1977 dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ahaa mid uu khasaare badan ka dhashay labada dhinacba waxaa markii hore dagaalka ku gacan sareeyay ciidamada Soomaaliyeed kuwaasi oo kulaalay ilaa iyo bartamaha Itoobiya balse markii ay dagaalka ka soo qayb galeen dalal badan oo ay isbahaysanayaan gaashaanbuurtii Warsaw oo Itoobiya gacan siinaya ay ciidamada Soomaaliyeed dib u soo guureen khubarada militariga ayaa waxay sheegeen in xilligaasi ay ciidamadii Soomaaliya ahaayeen kuwa dhisan qalab ahaan iyo guud ahaanba dhinaca tayada marka la barbar dhigo dhigooda Itoobiya oo aad uga gacan sareeyeen dhinacyada tacticada dagaalka awoodda ciidanka aan soo ururin hadaba maqaalkan kooban waxa isweydiin leh Soomaaliya iyo Kuuba goorma ay heshiiyeen sidee dad badani waxay isweydiinayaan Soomaaliya iyo Kuuba goorma ay heshiiyeen maadaama Kuuba xusuus xun oo maguuraan ay ku leedahay shacabka Soomaaliyeed wasiirka arrimaha dibadda ee tagay Havana caasimadda wadanka Kuuba arrintaasi ma uu faahfaahin iyo siyaasadda ay xukuumaddiisu ka qabto labada midna